maxaad kala socotaa daawade arrinta xaliya loo dili rabay oo loo dhibaateeyo isbitaal la jiifo hadda maxaad ka ogtahay mise maxaad kala socotaa? Fadlan hadday markii kuugu horeysay ee tahay janaalkeena aad soo booqatay, fadlan asxaabteena ka mid noqo. Soo dhawow daawade. Arrinta xaliya loo dil raba ayaa waxay ahayd asigoo Nairobi iska dalxiisayo iska damaashaadayo ayaa wiilal iyo gabdho u tashtay oo wadada u galay. Ayaa markaas qof caawisay la waayay oo hadda isbitaal Nairobi ku jiro wadanka Nairobi. Xaliya oo aad xanuun zaid si xunna loo jirdilay, dhibaatooyin badanna loo geystay, dadkana ay caawin waayeen. Xaliya oo dadka inta ugu badan muuqaalka ka duway ee dhahay ninkan la tumaayo ma ahan ninkii ragga Soomaaliyeed daanyeero ku tilmaamay oo lacag laaluusha qaatay. Xaliya dad badan ayaa iska indhatiray oo ku raaxaystay sida loo tumayo iyo ficilka loogu sameynayo loo jirdilay. Dad badanna wayba ku daawadeen oo qof garab siiya ayaa la waayay. Asiga maadaama mar walba in badan oo social media soo dhex fadhiistay aalad gaar ahaan TikTok la leeyahay uu ka dhex aatamay. Xaliya qof caawiye markii uu waayay si xun loo jirdilay ayaa asigoo tabcaan ah isbitaal loola orday oo xaaladiisa caafimaad aad ay u liidato ilaa iyo hadda xaaladiisa laga warhaanin oo aad ay u daran tahay oo si xun loo jirdilay oo qof garab istaago dadka ka dhiciyo la waayay meeshaas. Ileen Xaliya dad badan ayuu rag Soomaaliyeed iyo dumar Soomaaliyeed ayuu caayay, in badanna wuu ka caatamay social media, aad ayuu caatamay, caatin badan marar badan ayuu afkiisa u ceshan waayay. Laakiin Soomaalida ayaa mar ku heshay jaaniskaas ee ku heshayna iskama beel dareenin. Dadkeena Soomaalida ayaa si aad u xun Xaliya loo tumay. Xaliya ayaa markii la tumay ilaa lagu daawanayay muuqaalo ka duubteen zaid ay u jirdileen muuqaalo ka duubteenoo qof caawiso uu waayay oo zaid loo jirdilay. Markii dambe ayaa isbitaal loo qaaday. Bal daawade si xun in loo jirdilay ayaa muuqaal laga duubay uuna hadli waayay. Adigoo caatamaya daawade inaad soo baxid ma dalxiis iska soo baashaala iska soo kifaala qaataa. Jaaniska lagu raadina ayaa wixii ninkan in mar bala arko, markiina waa bala arkayo asigoo iska kifaaxayo iska damaashaadayo ayay fursad dadkan u heleeno si fiican ee u tumeen. Xaliya oo aad xanuun zaid iyo dhibaatooyin loo geystay kadib isbitaal loola orday. Bal muuqaalkan kilibkan la daawada asigoo zaid loo tumaayo. Dadka marka inay caawiyaan rabaan ee gadaal ka ogaadeen ninkii ragga Soomaaliyeed daanyeero ku tilmaamay. Raggiina wuu caayay, dumarkiina wuu caayay. Qof caawisa ayaa la waayay daawada. Yaa caawina hadduu rag iyo dumarkii caayay? Labadiiba dadkii dhan ayuu caayo aflagaadeeyay. Asigana waa la gaaday oo si xun ayaa loo tumay. Bal kilibkan isla daawana daawade. Kilibkan muuqaalkan isla wada daawana asxaabay. Asxaabay muuqaalkeena maanta intaas uu ku eg yahay. Xaliyana waxaan leenahay Allah caafiyo, caafimaad tamaam Allah ku siiyo. Laakiin inta ugu badan dad Ilaahay ku caafiyo ku dhahayo dee imika maanan arkin anaga, inkastuu dadku uu asiga jab u geystay oo dadkeenii zaid u caayay, Soomaalidii kulli dad walba u caayay. Marka waxaan leenahay Xaliya Allah ku caafiyaan leenahay daawade. Asxaabtana waxaan leeyahay haliska cafiyo, inkastoo bini'aadanka kun jeer ayuu qalad galaa, haliska saamaxa ayaa leeyahay qofkaas Soomaaliyeed. Bal asxaabay muuqaalkan muuqaalka xigaan oo balane. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.